maaha qof kaliya waa laba wiil oo walaalo ah Mukhtaar Cabdillaahi Ismaaciil iyo Mustafa Cabdillaahi Ismaaciil waa mataana ku nool magaalada Hargeysa oo muuqooda aan la kala aqoon sida magacayga noo khalnay ay dadkan ugu adagtay inaan labadeedu noo kala garan xataa eheladooda ayaa isku khalda badanka dadka isku kala qalda waxa kamid ah ehelka asxaabta iyo dadkayna midayso goobaha waxbarashada waxaan aad u jeclaa anigu inaan ku dhex jiro family-ga halku isagu jeclaa asxaabta iyo kubadda iyo waxa soo kale anigu waxaan ka warhayay in awow galab kasto shaqada ka soo imaado inuu keeno nacnac biscuit muslim macaan iyo waxyaabo fara badan marka galabtii markaan guriga awow tago waxaan soo qaadan jiray waxaan anu leeyahay oo qaybtayda marka labaad oo xidhan jiray dharkaas ka bedeli jiray dhar uu isugu leeyahay baan xidhan jiray aniga awow ku qaldayay inaan Mukhtaar ahay ayaan soo qaadan jiray cunto aan lahayn extra ya laba jeer saddex jeer marka saa ku cuno ayuu iman jiray isagoo soo haraaday soo daalay kasoo awow ku oran jiray awow mee waxaan xaq u lahaa Mustafa diga jeceshay mar walba kasoo oran jiray awow maalin walba may sidan xaq ma ahay waan mid calaamadiya macallimiinta goobaha ay waxay ku bartaan ayaa yanaan kala aqoon labada wiil goobaha waxbarasho kale macallimiinta awood ma laha badan inay kala gartaan waxaan awood u leeyahay xiisad isugu ka maqaynaan anigu buuxiyo ama xiisadan anu ka maqaynaan soo ku xiisada ma geli karay ama saas jirtay galan ku dhaysaga sheeko mid lala wadaagay ayaa haddana mid kale si khaldan loola wadaagaa inta badan markay tiin asxaab isku cusub waxa kuwa adkaanaysa inaad kala garato Mustafa iyo Mukhtaar aniga laftayda way ku dhacday maraan maxay hayday ka doonay Mustafa hawl inaan Mukhtaar ku qaldayba oo maxay hayday uu Mukhtaar iga soo horbaxay oo qaatay inuu Mustafa yahay oo Mukhtaar maxay hayday Mukhtaar hawsha dhan u sheegay halkan Mustafa ka doonay anigu markii koobaad marka maxay hayday way dhibaato badan tahay marka tiin mataano isku eeg waliba maxay hayday population-kii dadkeeda ku xeerna aydaan maxay hayday isku cusubtiin sida idin kala gartaa ay taa adag tahay marka maxay hayday hawlaha dhan bood kala digdigaysa qofkan adigu wadin adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida